السلام عليكم صاحب يال maanta waxaan isla fiirineynaa taariikhda saxaabigii weynaa eena ahaa khaliifkii saddexaad ee muslimiinta Cusmaan ibn Affan waxa uu dhashay sanadkii 576 waxa uu ka soo jeeday qabiilka reer Quraysh gaar ahaan reer Bani Umayya waxa uu ahaa nin hodan ah oo ganacsado weyn ah ka hor inta uusan muslim noqonin waxa uu ahaa mid sumcad wanaagsan ku leh bulshada Makka isagoo raacsan diinta Islaamka ayuu sidoo kale waxa uu guursaday laba kamid ah gabdhihii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ruqayya iyo Umm Kulthum Cusmaan waxa uu kamid noqday muslimiintii ugu horeysay ee diinta Islaamka qaadatay isagoo qaatay Islaamka intii lagu jiray waqtigii bilowga dacwada waxa uu ka qayb qaatay labadii hijro ee midii dhulkii Xabasha iyo Madiina isla markaasina waxa uu taageero weyn u ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo diinteena Islaamka Cusmaan waxa uu noqday khaliifkii saddexaad ee Islaamka sanadii 644 kadib geeridii khaliifkii labaad Umar ibn Khattab Allah ka raali noqday inta uu xilka hayayna waxa uu sameeyay horumar badan iyo isbedel muhiim ah mid kamid ah howlihii ugu waaweynaa ee uu qabtay Cusmaan waxa uu ahaa mideysiinta iyo dib u qorista Qur'aanka Kariimka waxa uu faray in la sameeyo nuqul kamid ah Qur'aanka Kariimka si ay dadka u heestaan nuqul isku mid ah tanina waxay ahayd talaabo muhiim u ahayd in la ilaaliyo Qur'aanka Kariimka Cusmaan Allah ka raali noqday waxa uu balaariyay howlaha militariga ee muslimiinta intii lagu guda jiray khilaafadiisa ciidamaduna waxa ay sii balaariyeen xukunka Islaamka iyagoo qabsaday dhulal hor leh sida Afrikada Waqooyi iyo qaar kamid ah Aasiyada Dhexe waxa kale oo uu dhisay Cusmaan Allah ka raali noqday maraakiib si ay u xoojiyaan ciidamada awoodda badda Cusmaan bin Affan markii uu waday maamulka iyo hogaaminta waxa uu jagooyin muhiim ah siiyay dad ka tirsan qoyskii reer Bani Umayya taasoo dhalisay in dadka qaar ay ka cawdaan talaxumo iyo musuqmaasuq qaar kamid ah madaxda hoose tanina waxa ay sababtay in uu wajaho mucaarad gudaha ah dhibaatada ugu weyn ee soo wajahday khaliifnimada Cusmaan Allah ka raali noqday waxa ay ahayd kacdoon ka dhashay dadka qaar kuwaasi oo kamid ahaa reer Ciraaq Masar iyo Kuufa dadkaasi waxa ay ku eedeeyeen Cusmaan cadaalad daro iyo maamul qabyaaladeed taasi oo keentay in mucaaradadii ay sii xoogeysato ugu dambeyntiina kacdoon wadayaasha waxa ay weerar ku qaadeen gurigiisa ugu dambeyntiina waxa ay dileen sanadii 656 markii kacdoon wadayaashani ay weerareen guriga isaga oo Qur'aan akhrisanaya ay ku dhex dileen dilkiisana waxa uu sababay in dhibaatooyin sidaasadeed oo waaweyn ay ka dhex dhacaan muslimiinta dhexdooda kuwaasi oo u horseeday dagaalo sokeeye iyo fidnooyin oo ka dhex dhasha muslimiinta dhexdooda Cusmaan bin Affan Allah ka raali noqday waxa uu ku caanbaxay naxariis iyo dulqaad waxaana lagu xasuustaa in uu lahaa karti taasi uu ku mideeyay Qur'aanka Kariimka sidoo kalena uu ku balaariyay dhulalkii Islaamka si kastaba ha ahaatee dhibaatadii ka dhalatay khilaafadiisa ayaa lagu tiriyaa arin culus oo raad weyn ku yeelatay taariikhda Islaamka dhaxal ahaana waxa uu ka tagay ummad muslimiin ah oo aad u balaaran waxaana inoo balan ah haduu Alla idmo muuqaalkani muuqaalka xigo